Hindiya iyo Pakistan waa laba dal oo muddo dheer ku jiray khilaaf istiraatiiji ah oo leh xidhiidh taariikheed, siyaasadeed iyo qowmiyadeed. Labada quwadood ee nuclear-ka wata ayaa tan iyo sanadkii 1947 markii ay kala go'een waxay galeen dhowr dagaal oo toos ah. Kuwii ugu xasaasina waxay ahaayeen dagaaladii Kashmir. Gobolkaas oo dhul qurux badan oo buruley ah ayaa noqday meel lagu hardamo, halkaas oo mid walba uu sheeganayo lahaansho buuxa. Qalfoofta colaadaasi weli ma baabin, waxaana markaas jira cabsi ah in xiisad yar ay isku bedesho dagaal ballaaran oo halis gelin kara malaayiin qof. Maalmihii u dambeeyay ayaa mar kale la arkay cabsida laga qabo dagaal dhex mara labadan quwadood kadib markii dhinaca Hindiya laga arkay dhaqdhaqaaq ay ku doonayso in ay biixireenno ku samayso webiga ugu muhiimsan ee Pakistan dhuunta biyaha oo ah. Maalmihii u dambeeyay ayaa mar kale cabsida dagaalku ay soo laabatay. Haddaba maxaa dhacay toddobaadkii u dambeeyay? Waana maxay sababta hadda looga hadlayo in mar kale Hindiya iyo Pakistan uu dagaal dhex mari karo? Maxay sheegeen saraakiisha ama taliyaasha ugu sarreeya ee ciidamada labada dal? Diyaar garow ayaan nahay iyo dagaalku way dhow yihiin ayaa laga soo xigtay. Warbixintan ayaan ku eegaynaa wax kasta oo dhacay saacadii u dambeeyay. ku dirso baysi lacagahaaga oo si degdeg ah u helaan ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo ugu dhacaysa telefoonkooda gacanta sida EVC, SAD, Sahal, MTN iyo M-Pesa. Kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. warbixinada ka imaanaya gobolka ayaa tilmaamaya dhaqdhaqaaqa military oo aad u xoogan oo ka socda xuduudda Kashmir ee labada dal, iyadoo ciidamo dheeraad ah la geeyay, diyaarado dagaal iyo gantaalana la dhaqaajiyay. Taliyaasha militarigana hadallo kulul ay iswadaarsanayaan. Dad badan ayaa xasuusan dagaalkii ugu dambeeyay ee isla sanadkan dhacay, kaasoo keenay labada dhinac ay isku garaacaan hawada, diyaarado la soo rido iyo xiisad caalami ah ku dhawaatay dagaal buuxa. Haddaba waxaa soo kordhay arrin cusub oo kicinaysa xiisadda. Qorshaha Hindiya ee biixireen waaweyn ay ka dhisanayso webiga ku qulqula Pakistan. Webiyadaas oo ay ka mid yihiin Indus iyo lamaanahiisa ayaa ah halbowlaha nolosha Pakistan, waxayna ka yimaadaan buruleyda Kashmir ee dhulka Hindiya ay maamusho. Heshiis caalami ah oo loo yaqaan Indus Water oo sanadkii 1960kii labada dal ay gaareen ayaa qeexayay sida biyaha loo qaybsanayo, iyadoo Hindiya loo ogolaaday inay isticmaasho qayb ka mid ah biyaha, laakiin aysan leexin karin amaba ka xanami karin socodka biyahan uu ku tagayo dhinaca Pakistan. Laakiin Islamabad waxay hadda ku eedanaysaa New Delhi inay qorsheynayso mashruuc ballaaran oo biixireen oo awood u siin kara inay xadido ama dib u dhigto biyaha ay Pakistan hesho. Inkastoo Hindiya ay ku doodayso in mashruucaasi yahay kuwa tamar koronto dhaliya ah, Pakistan waxay u aragtaa inay tahay hanjabaad istiraatiiji oo u dhiganta hab dagaal. Taliyaha militariga Pakistan ayaa si cad u sheegay in haddii Hindiya ay ku dhaqaaqdo tallaabo kasta oo wax u dhameeyo qulqulka biyaha, ay u arki doonaan arrintaas weerar toos ah oo ku wajahan qarankooda. Dhanka kale, warbaahinta Hindiya iyo saraakiisha amniga New Delhi ayaa waxay ku doodayaan Pakistan inaysan xaq u lahayn inay carqaladiso horumarinta kaabayaasha gudaha ee Hindiya, isla markaana ay tahay in New Delhi ay xaq u leedahay inay ka faa'iideysto kheyraadka dabiiciga sida ku cad heshiiska jira. Laakiin hadallada noocan waxay soo huriyeen colaadda, iyadoo dadka deegaanka Kashmir ay mar kale dareemayaan inay yihiin bartamaha loolanka weyn ee labada awoodood. Hanjabaadaha labada dhinac ayaa maalmihii u dambeeyay sii xoogaystay. Taliyaha ciidanka dhulka Hindiya isagoo ka hadlayay shir military oo shalay u dhacay, wuxuu ciidamadiisa u sheegay waana u diyaargaroodaan suurtagalnimada dagaal dhow, waqtiga dagaalku uu dhow yahay. Dhanka kale, taliyaha guud ee ciidanka Pakistan ayaa sheegay in cidda khasaaraha la kulmi doonto inay noqonayso mar kale Hindiya. Wax kasta oo la sameeyo carqaladeynaya biyaha Pakistan wuxuu ku sheegay khad cas, isagoo intaa ku daray in Pakistan ay awood military u leedahay inay ka jawaabto isku day kasta ama weerar maalin kasta iyo saacad walba ay la kulmi karto. Arrintan ma ahan kaliya khilaaf ku saabsan biixireen, waa qayb ka mid ah dagaalka awoodaha iyo saamaynta ee labada dal muddo dheer socday. Biyaha Kashmir waa mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha iyo nolosha Pakistan. Ku dhawaad kala bar dadka dalkaas waxay ku tiirsan yihiin webiyada si ay u waraabiyaan beerahooda. Haddii socodka biyahaasi la xakameeyo ama la yareeyo, waxay si toos ah u saamayn doontaa cuntada, dhaqaalaha iyo xasiloonida bulshada Pakistan. Taasi waa sababta Islamabad ay arrintan ugu aragto mid ka weyn muran farsamo, waana arrin badbaado qaran. Dhanka kale, Hindiya waxay dareemaysaa in Pakistan ay ku lug leedahay falal taageera oo kooxaha hubeysan ay ka howlgala Kashmir, kuwaas oo u aragto halis amni oo joogta. Mashruucyada biixireenada waxaa qaarkood loo arkaa inay yihiin jawaab istiraatiiji oo lagu muujinayo awoodda New Delhi ee gobolka, loogana hortagaya saamaynta Pakistan. Arrintani waxay si toos ah u taabanaysaa isku dheelitirka awoodda ee labada dal, taasoo markasta ahayd mid aad u jilicsan, maadaama labadaba ay leeyihiin hub nuclear oo awood u leh inay burbur ballaaran keenaan haddii dagaal dhaco. Balse dagaalka ugu dambeeyay sanadkan wuxuu ahaa mid ceeb iyo fadeexad dusha Hindiya u saaray. Hindiya tan iyo dagaalkaasi waxa ay hoos u roganaysa madaxeeda
ceeb ayaana meel walba u taalay. Waa sababta hadda loo maqlay isku day kale oo ay xiisad ku raadinayso. Waxaa jira oo ka sii daraya xaaladda taageerada ay quudaha weyn siinayaan labada dal. Dhinaca Hindiya waxay xiriir la leedahay reer galbeedka iyo Israel iyadoo loo arko xulafo muhiim ah oo ka hortagaysa saameynta Shiinaha. Halka Pakistan ay weli xiriir militari dhaqaale qoto dheer ay la leedahay Shiinaha, taasoo macnaheedu yahay in haddii dagaal toos ah mar kale uu qarxo, khatartu aysan ku ekaan karin labadan dal ee Koonfurta Aasiya, balse ay sii faafi karto oo noqon karto mid ay ku lug leeyihiin quudaha waaweyn ee caalamka. Warbixino sirdoon oo soo baxay ayaa tilmaamaya in labada dhinac ay kordhiyeen tababarka ciidamada ee ku dhow xuduudaha, taasoo mararka qaarkood keentay isku dhacyo rasaas la isweydaarsado. Xaaladda Kashmir ayaa mar kale noqotay mid kacsan, iyadoo dadka deegaanka ay ka walacsan yihiin in mar kale ay ku dhacaan dhexda dagaal weyn oo aysan iyagu door ku lahayn. Haddii xaaladdan lagu sii socdo, khatarta dagaalka waa mid aan la iska indhitiri karin. Xitaa haddii labada dhinac ay doonayaan in aysan gaarin heerkaas, qaladka ugu yar ee militari ama dhacdo lama filaan oo ka dhacda xadka ayaa sababi karta silsilad ficila oo aan la joojin karin. Taariikhda waxay marar badan muujisay sida dagaalada Hindiya iyo Pakistan ay u qarxi karaan si degdeg ah, iyadoo ay adag tahay in dib loogu celiyo markaa rasaasta afka markay ka baxdo. Dhab ahaantii waxaa socda waa dagaal istiraatiiji oo ku saabsan cidda leh gacanta biyaha, cidda leh awoodda siyaasadeed ee Kashmir, iyo cidda ku guulaysan karta dagaalka maskaxeed ee lagu kala helayo taageerada gudaha iyo tan caalamka. Labada dhinacba waxay dareemayaan cadaadis. Hindiya waxay rabtaa inay muujiso inay tahay quwad weyn oo gobolka ah. Pakistanna waxay rabtaa inay muujiso inaysan tanaasuli doonin xuquuqdeeda biyaha, iyo Kashmirna ay yihiin waxa ay ilaashan doonto. Marka loo eego sida ay xaaladdu u kacsan tahay, waxaa muuqata in khilaafkan uu yahay mid ku socda waddo khatar ah oo haddii aan la joojin ka dhigi karto gobolka mid aan la saadaalin karin, oo khatartu ay ka sii bixi karto xuduudaha labada dhinac una gudbi karto caalamka oo dhan.